السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا وايد السلام كل جين بروجرام كشير قراية عاو محيديه تري طورة ويديه تري كوي سياسة دي كهل تري يو وحيالها كلته مركا وحواي أصحابتي أوي قبليه ما شاء الله أصحابتي دي خير كقبتي بروجرام كانتو شير قراية waxaan ka hadlayaa arrin aad muhiim u ah runtii baan doonayaa inaan ka hadlo arrintan waan idinla qaybsanayaa mar dhow arrintaan idinla qaybsanayaa halkaa waxaan ku soo qoray ciwaanka yacnihii waxaan ku soo qoray xuquuqda maaragtay ciyaalku ay ku leeyihiin waalidkooda maxaan ka wadaa xuquuqda ay ku leeyihiin waalidkooda iyo waxyaalaha la rabo ma aha waalidku inaysan xuquuq aqoonin lagama hadlayo meesha laakiin waxaa jira wax aan rabno inaan isfahamsiino حاليما ومهاتسنتا جزاك الله خيرا واكو سلامي كلين وايد سلامي وايد جعله حبيبك يالكيو بروجرام كما تقانا هلا شير غريو وان idin سلامي وان idin soo dhaweynaya iyo aad baan idin jeclahay marka waxaan doonayaa programka marka hordhaca waxaan ka waday waxa waaye yacnihi waxa rabaa inaa isbarno waa aniga idin sheegay programkan waa educational inaa isbarno waxyaalaha xuquuqda aan mataqaanaa ilmaheena si aan wax kasta u ogaano si aan uga hortagno dhibaato kasta si aan isaga ilaalino ama aan isaga mataqaanaa ama xaq lagu leeyahay waajib wax aan ugu jira waajibka yacni baa jira waajibkaas haddii aan ka soo bixi weyno marka weeye marka dhibaatadu imaanaysa ani marka waxaan doonayaa waxaa jira clip aan ka soo qaaday TikTok-ga runtii dhowr beri maan haystay laakiin mashquul baa ahaa inaa idinla qaybsadaan rabay clipkaas aniga aad ayuu ii dhiba waan dhibsaday aad baan uga xanuunsaday anoo hooyo waxaa laga yaabaa clipka markaa daawataan waxaan doonayaa inaa ila aragtaan ila daawataan qof walbowba adoo degan oo aadan caadifoon oo qabyaaladaysan qofku yahay ilaahaba eegaga sarreeya programmada aan keeno ilaahay magaciisaan ku dhaaranayaa dadka qabiilkooda inaan raadin because qaymo uu igu fadhiyaa ma jiro waxaan ka hadla aniga waxa waaye topic baan soo qaataa aan u arko in topicaas u baahan yahay in la iska baraarujiyo saas muhiimaduna waa taa qofkii de asagu ma taqaanaa qofka yaqaana asagay jirtaa anigu aqoon iyo qabiil iyo midna kuma socdo waxaan ku socdaa issue-gaan arrintan ma tahay arrin u baahan in la iska wacdi geliyo oo arrin ma tahay u baahan in ma qaldan tahay ma u baahan tahay arrintan in la saxo oo ma u tahay arrin in la saxo u baahan ma tahay marka arrinkan waxa waaye waxaan doonayaa inaad clipka ila aragtaan waad wada aragteen kulligii waa hubaa inaad intiina badan aragteen qaarkiina aan aragna haddaad arkaysaan waxaan u keenay inaan maskaxda tuujinno fakerno eegno waarid adiga waxaad isdhigtaa halkaa waarid baa tahay sida dareenkaagu yahay adiga cabir ilmahaagu meeshay kaa joogaan cabir wax kasta cabir markaa ka bacdi ayaan ka hadli doonaa aniga arrintan waxaa waaye siday dadku u soo bataana dad badan gaarsiiya programka sorry waa qaaliyeen waa dheeraynayaa iyo suga ilmahayga 8 sano jira ayay ku dhacday odagayga ilmahaan dhalay ayayna ka dhacday shaytaan bay ka dhacday laakiin loo haystaa dembigii loo haystaa walaal aniga waxaan ku noolay waddan nabad ah ayaan ku noolahay oo sharci ka jiro oo qofna uusan qofka kaleeto ku xadgudbi karinin oo uusan been ka sheegi karinin ayaan ku noolahay oo wax kastoo beena oo sheegta inta la baaro lagaa daba tegayo lagu soo qabanayo
كيس كان معها كيس هو يوم السير سنة ويحنا سنة عنين ناقص تقال إبان سكشيء عن معها كيس كان هو كيس خوف لقنا تجلس يشرف كيسة يدباتي هذا سام تين قف كلا وهدي شغلة لما ران دباتيز إن شرفتي سوى له قد عيوبية سو كيس كان هو كيس وباهن آد قف كستين وآد وقفكروا وأنتان أي قصيصة سلانك وكلا تانجا قف كان آد وقفكروا باهن الحمد لله أنا أروح أستعين وحن قصدي ولا الصوماليات ولا الكيل معي أنا ولا مدفع عن بني سخمنا الحمد لله دبعت متشرين ما أرتي إلهي وأنا جاي يدبونا لكن وقتي هبينا أي كبر عن السوق بودي أنا أقول بإيمي سنة معنا وحب تكتي كبر كلا ولا شيء وسألت مسألة شفته وحب شيء إن دبعت الله هيو وأبي ودبعت هيو ولي مقع بابا ده يساعي بابا دبعت ويكسبون بيوتقان يدير قرص يدير أدي أيام قرص لمعثن عن أفسنا وحدث كبيرين مركا الحمد لله رب العالمين أبا يوتقاني وحتوي بابا أبا يوحنيالي أبي هو يا خيامين يا أنا يا خيامين يا دبعت أيوه كيستي جيم أنا بحي العياسية أنا جيم كان وأنا بحي mana jeceli marka arrintaas ay soo bandhigtay waxay sheegtay in maaragtay xadgudub nafsiyan oo lagu sameeyey aniga hurda ayaa inta iisoo sheegay gabadhaydii kale ayay soo aaday intaasoo arrimood ayay sheegtay warkaasaa aniga arrintii wayla xumaatay soomaali qof walba si uu fasirtaa laakiin aniga barna muuse ahaan qof advocacy-ga u dhalatay baan ahay professionkeeduna uu yahay LTT advocacy marka maadaama uu advocacy ay shaqadeeda tahay asaas ahaan u dhasho maadhig bay ku samaysan tahay isla markiiba arrintii inaan gabadhii weydiiyo oo waxay ku soo dhacday safetiga ilaali marka walaalkii walaalo hadda arrintu isku soo duuduuba arrintu waa socotaa dacway ku jirtaa arrin beena ma ahan aniga shaki iyo anaaba shakisana waa un wada dakhla okay maxaa haddaba ay tahay aniga arrintan waxaan u keenay iyo waxa ay aniga ii dhiibayso maxay tahay adinkuna tiina waad ila qaybsanaysaan qof walbowba say kula tahay halkaasaad kusoo qoraysaa yacnihii waxa waaye horta waxa weeyaan arrintan ma dhacday iyo ma dhicin aniga shaqo kuma lihi mana dhahaayo waa dhacday mana dhihin waa dhacday ma dhacayso laakiin waxa aniga i dhibay waxa waaye aniga hooyaana markay wax dhacaan sideedaba horta hooyaana waarid baan ahay waarid markaan ahayna yacnihii waxaan leeyahay waajib baa jira isaaran oo xuquuq ah oo ilmahaygu igu leeyahay arrinta marka anigu waxaan ka soo horjeedo waxa waaye waxa aan ka naxsanahay waxa waaye yacnihii dad baa dhihi doona maaragtay inay sheegto gabadhan way ku fiicnayd sababtoo ah adinku halkaasaad wax ka eegaysaan waxaa laga yaabaa inay sheegto inaad ka eegaysaan laakiin anigu I disagreed with you ma idinku raacsani waayo reasonka aan idinku raacsanayn baan ku sheegay waxaa jirta wax la dhaho sheegid iyo wax la dhaho protection waxa waaye hay'ado dawlad leedahay markay wax dhacaan waxaa jira hay'ado dawladeed oo sharci ah oo aad la xiriiraysid oo arrintii aad u sheegaysid oo arrintii faraha la galayo ku jiray laakiin waxa Soomaalidiina la rabaa inaad fahamtaan oo aad ogaataan wax sheeg ma aha meeshan waxaa laga hadlayaa dad sharafki iyo cisigi qof bini aadana sharafki iyo cisigi baa laga hadlayaa maxay wax u dhaceen lagama hadlayo waxaa laga hadlayaa ilmahan muxuu xaq kugu leeyahay aase waarid muxuu xaq kugu leeyahay wuxuu xaq kugu leeyahay waxa waaye basic human right ka ilmahaagu xaq kugu leeyahay waxa waaye kow inaad ka ilaalisid in la abuse gareeyo ama la xumeeyo laba oo caafimaad jireed iyo mid maxaan ku dhahaa dareemeed iyo maxaan ku dhahaa education iyo maxaan ku dhahaa cunto fiican iyo guri iyo meel uu ku nasto aad geysid laba waxa waaye
inaad ilaalisid mataqaanaa well-beingkiisa waxaa soo hoosgelaya cirdiga iyo sharafka uu leeyahay diinta islaamku waxay tiri qofka waxaa la ilaaliyaa cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo xoolihiisa cirdiga iyo sharafka ilmahan wuxuu ku leeyahay hooyadan hadlaysa xaq buu ku leeyahay rightskii iyo xaqa ay ku lahaa ilmaheedii may marisano yaa yiri afkeeda furo ilmaheedii hadday haayadihii qaabilsanaa hadday u sheegtay oo la socodsiisay oo kayskii lagu jiro waay ilmaha yar asagaa yiri isheeg may ilmihii birito mustaqbalka lagama fekeraayo dhaawaca soo gaaray oo la gaarsiinay dadka gaalada iyo dadka cid kasta ilmahooda ma soo bandhigaan waay ay ugu baahnayd yaa kula taliyay sababta ay ugu baahnayd inay inta halkan soo fariisato advocacy bay leedahay outreach waa dadka communityga inta u tagtago warka u sheego dhaha ordo isu soo talaala ordo maxaan ku dhahaa caafimaad raadsada waxani waa wax laga hadlaya waxa laga haya child protection baa laga hadlaya waxa laga hadlaya qof human being rightskiisa laga hadlaya waxa laga hadlaya waarid ahaan mas'uuliyadii aad lahayd inaad ilmahaaga xafidid cirdigiisa sharafkiisa iyo dadnimadiisa waxaday ilmahaaga ku dhaceen oo haayadihii qaabilsanaan loo sheegay sabab anigu ma garanayo ilmihii mustaqbalkiisa loo baabi'iyo loo ceebeeyo oo la dhaho makii maxaan ku dhahaa la qabsan jiray oo ninka adeerka u yahay qabsadayba ilmahaas imagine videoga la duubay wuxuu dhex fadhiyaa social media next 100 years wuxuu dhex fadhiyaa social media videogaas ka waran naagaha aan aqliga lahayn maskaxda lahayn oo candadooda soo waraya social media oo isqaawinaya oo adab darrada ku kacaya oo wax aan akhlaaqda lahayn ku kacay ka waran 100 years inay ilmahooda ay u noqon doonto cawaaqib ay uga tageen oo fool xun oo gabadhay la hadlaan iyo wiilkay la hadlaan badhaa hooyada ayaa baa ku jirta social media matii baa ku dhashay mataqaanaa waxaas matii yacnihii waxa waaye cunta siin ma aha dhar siinna ma aha yacnihii waxa waaye ilmaha in dhinac kastaba laga ilaalin inaa ilmaha cirdigiisa waa qof asabi ah gacantaada ku jira aan ku dhihi karin waxaan ma rabe igada waa qof yar under 18 qof yar waa waxaan aniga ha ceebaynin kuma dhihi karo sharafkayga meel ha uga dhicin kuma dhihi karo cirdigayga meel ha uga dhicin kuma dhihi karo waxa waaye adaa ka mas'uula adiga ayaa alla ka sokow protectionkiisi adiga ayaa laga rabaa waarid ahaan inaad ilmahaaga xifdidid niyadiisa xifdidid dareenkiisa xifdidid cirdigiisa xifdidid sharaftiisa xifdidid cuntada iyo waxaas iyo dhan waxaa ka daran ceebayntaa ka daran dhaleecayntaa ka daran cambaarayntaa ka daran foolxumada ay ku samaynayaan naagahaas ilmahooda wallahi waa aniga hooyo ahaan waan ka gariiday waan ka xumaaday dhowr aniga ildahayo dhowr beri ayay niyadda aan ka jabay shakaroo naagaha Soomaalidu kulli kama fekeraan waa caadifadaysta waa jaahiliin aqli iyo maskax ma laha waa istustus oo waa isku daydaan waa copyright oo iyagoo dhan copyright wadaya mid kale copy garaynaysa waxaysan ogeyn bay isaga dhahaan because ma ay oga qiimo qofka bini'aadanka human being waa inuu qiimo kula yeesha waxa waaye hooyo ma ilmaheeda xumaysa haddaadan ilmahaaga xumayna waa aad banaanka usoo dhigaysaa waa ilmahaaga aad uga fakerin intaadan action qaadin oo futadaada iyo cannadaada banaanka soo warin waa aadan uga fakerin indhahaaga intaadan afka furanin waa aadan uga fakerin waa ilmahaaga mustaqbalkiisa aad u baabi'inaysaa waa sabab maxaa kugu kalifayna ilmahaaga mustaqbalkiisa baabi'isid waa aadan u xishoonin oo ilmahaaga uga xishoonin haddaada alla ka xishoonayn oo cid kale ka xishoonayn waa haddii ilmahaaga dhibaato lagu sameeyey already waxa waaye dowladdii baad u geysay dowladdaana ku filan sharciyaa yaalla
واي هذه ما هجا بدانك وكينيسا قال هذا واحد واي ريرك ولا جررا هدي إبن لا أقون صدا بلا ررا إسكول كهدي الموح كده عن إبن لجو مشي جاي وحلا جول لجو مشي جاي صابته واي ذاتك كلا المهود يشرف كودي عيسى كودو والواحد شاهي لو ريد بادية وبادية ريد بادية كشرف بدن ريد بادية لجو شيء ما كهذا ريد بادية لكن ضد عن وحنا أقون ما حنا كان فكرين consequences كأي دبعة تدبر وكإيمان يسأل المهود دبّي هذا وحواي أكشن كان هذا سمين قف وين بات حرب أطها وح سمين يسيد لكن قف كأن مسؤول كتها كفكر وح سمين يسيد كفكر بقول معتقانا تم بقول شير أنت آذن صفلين كفكر ها والله ها وصح because وحواي يعني هي وحواي مركي ilma laga hadlaayo lagama hadlaayo waxa laga hadlayaa ilmaha baa laga hadlaa waxa laga hadlayaa kulli noloshan qofkan bini aadanka ah oo bini aadanka ah baa laga hadlaa xuquuqdiisii oo dhan baa laga hadlayaa gacanta kugu jirta xuquuqdiisuna waxa waaye ما أها عنطق ما أها وحاسات شيء يصير محوا شنكرون وحاسودن ما حقوق دي سو وحواي إن دلع كستبل لجا إلى مسؤولية ده عنك كاكله بالمهني مركب بريتو بريتو مركب وينادو وحنو وحواي وحكون قنيسا عقدات بيكون قنيسا وحكون قنيسا حتى مركب قاركود وحلا جايبه جور بينه وايبه وحكون لجا يابا إنه المهن حتى mental health جيسا دبعته أوتيمادو oo ma taqaana halkaas cuqdadii hooyadiis ku samaysay aysan warigi ka harinin waxa waaye waxaan reerka dariska la hadda ma ba ogaadeen ba arrintan hadday jataayadaha inta u sheegto afkeeda xirato afakis of what waxay ku leedahay safety baan ka hadlayo confidentiality safety ga ay samaysay maxay tahay ilmahadi bay waxay ka dhigtay public property bay ka dhigtay ilmahadi banaanka soo dhigtay maxay tahay safety ga ka hadlaysaa she doesn't understand even safety what safety mean maxay tahay safety ga haddaad ilmahaaga aadan maxaan ku dhahaa inaad xafidatid oo ilaalsatid mustaqbalka nad maanta uu yar yahay oo sa kula hadli karinin markuu weynaado ilmahaaga haddaadan ka fakirin inaad xafidatid safety ga ay ka hadlaysaa maxay tahay bal ilaah baa idinku dharshay waa maxay safety ga laga hadlaaya safety ma jirto meeshaan waxa waaye ilmahan adiga mas'uulka ah وإن أيضاً كف كرنين الماء بناك إنه مدة كله وحن دباتوين كهذا بلشدي ما الكستان كهذا الله وما قاعد يركتنا نقول أبيوس كهذلنا إن أنا كفسي كهذلنا ما قال كهذلا ما قال أفك الله كهذلا وهذا يصير عنه كهذلنا ما واحد محن كده كهذا ما واحد صامبا إن الماء لا إلى عليه ما الكستان دولة دي بكهذلا أو وات ما الكستان الله كهذلا أو individual بكهذلا أو أنا كي بكهذلنا maxay uga baahanayda inay ilmaheeda ka shifto ma fahmin anigu runtii I don't understand at all ma ana fahmin dadka waxaas ku kacayo dhanna ma fahmin cidda kula talisana cid qaldan bay ahayd hadday cid kula dalisay oo ayaguna aan maskax lahaynin bay ahaayeen runtii wixii kula taliyana waa qaldanaayeen maxaan ku dhahaa hadday iyadu samaysana way qaldan tahay aniga waxa waaye maba u arka necessity inay tahay uma baahan maxaan uga baahanahay inaan anaga ogaano maxaan uga baahana already hay'ada ku shaqale dawlad baa ku shaqale gacantay ku qabatay dawladii baa kiiskii la wareegtay wuxuu ahaaba by the way shalay waxaan la hadlayay shalay qolo waxa jirta isla shaqeeno oo maxaan ku dhahaa gaala waxa domestic violence baa shalay ka hadlayna iyo caruurta la qaato suumkan ka hadlay dad badan oo been caruurta xataa been bay sheegtaa waalidoodkood bay been ka sheegtaa step father kay been ka sheegtaa case kasta aan maqalay inaan la boodna xataa ogaana mani we don't know even what maxaan ku dhahaa case kan uu yahay anigu waa been iyo waa run midna ma dhahayo laakiin muhiimadayda dhan baa waxay tahay soo galay waxa in ilmaha la ilaaliyo xuquuqdooda rightskooda la ilaaliyo mustaqbalkoodana aan lagu ciyaarin haddii wax dhacaan hay'adaha dawladaha oo ku shaqale loo sheego cidii kaleeto oo wacdi gelin ka samaysa arrintan ay ka samaysa laakiin anoo hooya wax dhaceen ilmahayga banaanka ma soo dhigeen absolutely ma soo dhigeen
naag igula talisana ma yeeleen haddaan caqli leeyahay maskax leeyahay ee ilmahayga ayaan ilaalin lahaa dignitygiis baan ilaalin lahaa haddaan aniga iyada ahaan lahaa inta meelaha waaba caadiba qof yacnihiisay u hadlaysaba habi inay ku taho kaleba u hadlaysaaba qoftan marka waxa waaye qofkii sidaas ku jira waxaan kula talinayaa oo aan rintii kula talinayaa inuu ilmihiisa u turo qofkii waxaa ku fakeraya iyo naagaha qaaqaawaneen social media isi soo dhigaya ayaguna waxa waaye child abuse bay hayaan mentally because ilmahoodii bay mentally u dhaawacayaan mentally abuse bay ku samaynayaan ilmahoodii mentally torturing because no one qof jecel ma jiro hooyadiisa qaawan inuu dariiqa ku arko social media yaa waa qofka jecel hooyadiisa oo geedkeedii meesha soo waran yahay inuu arko no one jecel ma jiro hooyadiisa wax balaayo wax daran sheegaysa yaa waaye qofka jecel qof jecel ma jiro war runta ma isu sheegno waa la waashay halkani naag kastaba haddaad balwad intay isticmaasho aan markaa balwadii la soo gasho social media oo social media markii la caayana ay isku salaq dhabato oo waxay rabta ka samayso ilmaheediina aysan ka fakerinin markay waxaanay ta isticmaalayaanba ma isaga fogaadaan because balwadaba xataa waxa waaye dad u jilicsan oo softa u ah waaye Soomaalidu marka yacnihii rag iyo dumar balwad hadday yaashaan waa ku daayeen waxa waaye ma balhaanba balance ma leh waa abuse garaynayaan balwadii 17 years bay abuse garayaan waxa waaye ilmaha markaa leedihiin ilmihiina u tura oo ilmihiina xuquuqdooda ilaaliya oo sharafkooda ilaaliya wallaahi waxa waaye waxaan waa ka darey subxaan allah wallaahi waxaan waa ka darey anyway intaas yartaa aniga baraarujin bay iga tahay jacayl bayna iga tahay wanaag aan u rabo ummadayda Soomaaliyeed bayna iga tahay maalin kastana waxaan ku dhahay halkaa waxa u soo gala waa taas xoolo iyo xaqna midna ma ka raadinayo laakiin waxaan ka raadinayaa ummadayda inaan aniga u shaqeeyo oo wixii aan karaankayga afaro arrintaas marka arrin xun weeye please waxa waaye qofka taqaaniina kala taliya dadkan caamadaana yaan wax kasta ma taqaanaa lagu boriin oo dheheen samee 100 jeer before intay sameyn waa in laga fakeraa actionka waa in laga fakeraa 100 jeer before marka waa idin salaamay waa idin jeclahay waa aad iyo aad baan idin jeclahay ma taqaanaa I hope ina ma taqaanaa in yaro baraarujina halkaan ay isfarnay dad badanna ay ka fakeraan intaysan ma taqaanaa action intaysan qaadin waxay samaynayaan inay 100 jeer before ay ka fakeraan 100 jeer ka hor waa inuu ka fakeraan intaysan action qaadin waa inaa aniga aanan noqonin selfish waa inaan noqon naftayda kaliya waxay jeceshahay waxaan doonahay iyo waxa caadifadu isiinaysa waa inaan ka fakeraa waa inaan ka fakeraa dadka iga dambeeya dadka aan u ahay role modelka dadka aan u ahay maqacana qof lagu hiigsado dadka aan u ahay ma taqaanaa heroga dadka aan u ahay maxaan ku dhahaa geesigooda waa inaan dadka ka fakeraa dadka waa inay ilmahaygu igu faani karaan oo ay dhihi karaan waalidkay sidaas iyo sidaas laakiin ilmahaygu ma aha inay dhahaan waalidkay waa i ceebeeyey oo social media aanoo fool xun aan soo taagnahay 100 sano ka bacd iyo ay kuwa ayeeyada u yihiin aweeyada iyo awowaha ayeeyada u yihiin ay ka arkaan meeshaas ilaa social media waxba kama baxayaan marka waa idin salaamay waa idin jeclahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu programka sii share gareeya maaragtay si dad badan waxaanay ta uga baaqsadaan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu